الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علمود tilmaamaan ninka gabadha kufsaday haddii wax caddayn loo waayo uu sheegaya inuu gabadhaasi uu kufsaday laakiin qaraa'in kale ay jirto arrinkaa tusinaysaa waxay culimmadu leeyihin qofkaasi imaamka iyo xaakimka iyo qaadiga waxaa u bannaan tacsiir inuu ku sameeya marka ficilka noocaasi oo kale uu kaga joogsanayo gabadha la kufsaday iyada hadday caddaatay la kufsaday oona iyadu waxaan raali ka ahayn iyada wax allaala wax dembiyo lagu leeyahay ma jiro wax ciqaaba oo la saarayaana ma jira marka waxataa sida qofka kufsiga sameeyey haddii waxa weeya kufsigaasi ay u dheer tahay hanjabaad uu hub ugu hanjabaya markaa amaba afduubasha ay la socoto uu qofkii afduubto meel kale la tago culimadu waxay leeyihin xadulxiraab wax la yidhaha ayaa xukunkiisa u raacaya u dheeraanaya oo qof markaa burcad waxa weye burcadnimo sameeyey ayuu noqonaya taana xukunkeeda ilaahay baa inoo tilmaamay oo yidhi inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alardi afartaa xukun baa waxay ku dheeraanaya intaa marka u raacay waxaan kusoo gabagabeynaynaa xeerkii maalmihii dhowey golaha wakiilada lasoo hordhigay ee markaasi kufsiga ka warramayay waxyaabo fara badan oo mukhaalafaada oo sharciga uu ku khilaafsan yahay baa jiray marka in badan oo culimada waddanka ka midina way caddeeyeen haddana miya ka taabano waxyaabaha waxaa ka mid ahaa in xeerkani uu ka hadlayey qofka markaasi waxa weya haddii la qasbo un marka cuquubaadka uu ka ratibayey xeerku muu banbixin haddii labada qof shaygan raalli ay ka wada yihiin oo sina ay tahay marka wax allaala cuquubaadana muu saarin kamanu hadin marka mafhuumul mukhaalafiinsa wuxuu noqonayaa inaan wax dhiba lahayn haddii labada qof raalli ay iskaga yihiin qaanata gaala ayaa lagu yaqaanaayo wax muslimiin ay taqaanama ta labaad waxa weeyaan qofka haddii kufsigaasi uu sameeyo waxaynu sheegnay cuquubaadka sharcigu uu marinaya marka laakiin intaa cuquubaynu sheegnay midnaba xeerka laguma sheegin laba shay baa lagu sheegay ta koowaad waxa weeyaan qofka in la xidho iyadoo muddada la xidhaya ay kulba waxa weye ficilka uu sameeye ku kala duwan tahay iyo in lacag lagu xukumo marka lacagtaasna kolba dembiga uu sameeyey intuu leegahay bay ku kala badan labadaasi intii ay islaamku uu sheegay midnaba maamo waarka saddexaade waa la camimeeyo waxaa la yihi qofkii isagoon raalli ka ahayn haddii markaasi falgalmaa lagu sameeyo waa la camimay lagama soo reebin labadii qofka lamaanaha iyo isqabiil dariiq xalaala isku qabay marka waayo islaamku uma yaqaano kufsi haddii ninku gabadhiisa iyadoon raalli ka ahayn ku taga marka wax kufsi loo yaqaano maaha islaamka dhexdiisa laakiin sharciga waxa weye xeerkaasi isagoo kufsi ayuu ka dhigayaa qofka cuquubo markaa la saaray waa ta afraade waxyaabaha ku khilaafsanyi waxaa ka mid ah in markaas waxa weeyaan qofka dembi laga dhigay haddii inantiisa oo iyagu guuriyo marka ama iyadoon raalika uu guuriyo dembigoogu xeerku ka dhigaya marka welibana qofka sidaa sameeyey waalidkaa ee ilmaha si guuriyo la ciqaabaya marka islaamkuna dembi uma yaqaano nabiga sala allahu calayh wasalam caaisho waxaa loo meeriyey iyadoo lix jira iyadoo sagaal jirana waa la aqal galay iyadoo 18 jirana waa ka dhintay marka marka haddii waalidkii maslaxa u arkay inantiisa inuu sii meheriyo wax dembiya islaamka dhexdiisa maa cuquubo in laga tartibo hadalkeeda badaad waa tashanaade waxaa xeerku waxa weeyaan uu ka dhigay waktiga qofku uu ku qaangaadhaya 18 jir islaamka dhexdiisa markaa lama yaqaano waxaa qofka islaamka dhexdiisa lagu gartaa inuu qaangaadhay inay biyihii taranku ay ka soo baxaan amaba inay timihii hoose usoo baxaan amaba inuu 15 jir gaadho ama gabadhu ina dhiiggii cadada aragta marka laakiin 18 jir baa qofku uu ku qaangaadhayaa waa dhaqan gaalodka islaamka maaha waa talixaada waxyaabaha ugu khilaafsan yahay xeerka diinta islaamka waxaa ka mid ah in qofkii laga dhigay qof la qasbay oo xukunkii qof la qasbay uu qaadanayo haddii jeel ku jira marka amaba ciddan xumaanta ku samaynaysa ay ka maqaan sarrayso ka jumhur sarraysa marka islaamkuna taama eego qofkan shuruuddii qofka xillima ayaa la odhan karaa waa la qasbay shuruud bay leedahay marka mujarad qofku inuu jeel ku jiraa ka dhigi mayso inuu qasban yahay waxaa laga yaaba qofku inuu jeel ku jiro inuu xumaantii rabo qofkii jeel ku jiro xumaantii doonaya haddii uu sameeyo xeerku wuxuu leeyahy waa la qasbay diinta islaamkuna waa eegaysaa yaa la qasbin mise lama qasbin waxaa dhici karta in la qasbay isagoo jeel ku jira
waxaa dhici karta inaan cidlo qasbin isagoo xumaan uu rabay isagoo jeerkii ku jira marka qof haddii ka maqaam sarreeya qofkan uu xumaanta ku sameeyana waa la qasbay baa xeer ku leey islaamku wuxuu eegaya qofka nima rabay mise muu rabin haddii tusaale ahaan gabadhi xumaan ay doonaysa inay la samaysan nin tusaale ahaan wuxuu ka maqaam sarreeya xeerku wuxuu leeyahay waa kus sharcigu laakiin wuxuu eegayaa yaa la qasbay mise lama qasbay ta ku xigtaa waxay tahay waxyaaba uu ku khilaafsan yahay ah waa xeerku leeyahay qofku haddii cawradiisa uu muujiyo xubintiisa taranka gaar ahaan dad dhexdooda haddii uu ku muujiyo waa anshax daro ciqaabna waa la marinayaa xubintiisa taranka oo keliya waa haddii uu muujiyana islaamkuna wuxuu cawro u yaqaano waynu naqaanaa gabadhu dhammaanteed waa cawro culamada qaar baa ka soo reebay wejiga iyo labada kaf ninkana waxaa cawro ah waa min asurati ila rukba waa xundurta ilaa laga gaadhay jilba laakiin iyagu waxay leeyihin xubinta taranka u naqa taasina dagaalada lagu yaqaanayo islaam waxay wuxuu yaqaanama waxaa kaloo kamid a waxyaabaha ugu khilaafsan yahay xeerkaasi diinta islaamka in markaasi waxa cuquubaadkii loo kala dejiyay dadku kolkasta ay bulshada dhexdooda darajada ku kala leeyihiin marka oo qofka iska hooseeya ciqaab la marinayo ka darajada dhexe ku jiran ciqaab la marinayo ka ugu sarreeya ciqaab la marinayo diinta islaamku saa uma kala qaado dadka qofku doona ha ahaade ama madaxweyne ha ahaade ama mita ha ahaadee haddii uu sina sameeyo intii aanu sheegin baa la marinaya marka qofku doona ha lama kala qaado waxaa kaloo kamid a waxyaabaha diinta ugu khilaafay xeerkaasi inaanu markaasi ictibaar ba siinin qofka maxaa lagu garanaya inuu sinaystay ama waa la kufsaday marka xeerku wuxuu odhanayaa mar haddii qofkaasi dhibana ahaa la kufsaday ku doonaba ha ahaadee uu maxkamadda imaadu idhahdo waa lay kufsaday halkiisa calaaduul la qaadanaya marka diinteena islaamku taama taqaano qofku haddii idhahdo waa lay kufsaday de caddiintaada kii dareeday haddii caddiintii u keeni waayo kii uu tuhmaya baa la odhanaya ku dhaaro waxaa bukhaari muslim ay ka warinayaan can ibni cabbaas النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم haddii dadka sheegashadoodu wax lagu siinayo oo qof waliba wuxuu sheegtan la siinayo dad baa waxay sheegan lahayn dad dhiigooda iyo xoolahooda marka hebel qofku laga dila hala loo dilo ku dila un baa la odhanaya hebel xooluhu naga dhacay hala looga soo qaad un baa la odhanaya lakin nabigu wuxuu leey walaakin albayinatu cala almuddaci ka wax sheeganaya caddayn baa laga qabaa رواية يقولون يا وحي هاي البينة على المدعي واليمين على من أنكر قفوا وحشينا يعطي بالغ ربا أدي عديته كين ويكي وحوي وحشينا يقول دار الله يقول لا تصل من دار إن حكوا قرنا يا مصباح بناها هذا الكيس على طول حكومة ويقال الإسلام وعقلوا من ذا حياة حياة جديدة وكل شيء هاي المركزي قفي والله هي لا تجد تدير يا محيي oo tusaalahan ilma yar haddii uu sinaysto ama uu cid kufsado ama nin waalana uu cid kufsado in la ciqaabayo laakiin ciqaabtu laga khafiifinayo diinta islaamku markaas kuma jirta marka qofku mar haddii uu waalay ama ilma yar uu yahay qalinba ma kor saarna waxaa xuduudu warinaya can caaisha nabigu sala allahu calayhi wasalam rufica alqalam can talaata saddex qalinkii takliifka iyo dembi in loo qabto oo laga korqaadayba cid waxba uma qabto waxaa ka mid ahaa الصغير حتى يكبر المهر إلا يكون وكقن قاعد والمجنون حتى يعقل قفت وراء إلا رسوم يسريه عوض ومقرمة حيث نقول ولا عقاب لكن عقابكم ولا في فنان وحضروا حيث ما خلق قادم بقى قفت المقف كور ورسوم مريضا سوى قفت الكور ورسوم مريض وما خلق قادم نوع دوناء العقاب قال شيئون بالله مريضا يا حركة أمر العقامة شرع يقولون خلق قادم يقفت الكور ورسوم مريض إلى الكور ورسوم gunaanadkii waxay idhahdeen xeerkaanu dejinay wixii markaas waxa weeyaan khilaafsan ictibaar ma aha in waxaynu arkaynaa diintii islaamku waa inay markaasi ay khilaafsan tahay marka xeerka noocaasiya wax waddan islaam lala imaado ma aha waayo andaro aad iyo aad weyn inagoo diinta islaamka u isba sheeganayna in xeerka noocaasiya la ansixiyana bulsho iyo culimo caamo iyo markaa madax intaba dhinac loogu soo wada jeedsado ay mudan الله سبحانه وتعالى يبشرنا بأسماء الحسنى وصفاته العلى من وحي شر نرده إلى شر سيدنا وما اللهم من أراد بنا وببلادنا وبديننا سوءا اللهم اجعل كيده في نحر إلى نبتي سفعلي إلى شركي سينرده الله سبحانه وتعالى عد الله عد لواتنا ربط إلى دلاتنا لنقعد اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.